السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دينتين والدين حريص. النبي صلى الله عليه وسلم مركو أصحابتي سلدر دارمي وحكولي كونوا مبشرين ولا تكونوا منفرين. نقلة ضدك سودوية ضدك أويرة ضدك سوتشيتا إحنا نقولنا ضدك إرياء. النبي صلى الله عليه وسلم وتشدد إلهي سبحانه وتعالى أصدر نوحة أحين رحمة للعالمين نحريس لو صدر ضدك مالو البيت شوغان وقت والبيت شوغان waxaa dhacda marmar in masaajidyadeenna caruurta yaryar markay khaladaad ay sameeyaan loola hadla si qalafsan oo aad u adag taasoo ka hor imanaysa risaaladii ama message-kii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu lahaa kunu mubashiriina wala takunu munafirin maalin kamida maalmaha xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxaa dhacday nin Carabiya soo galay masaajidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii markuu masaajidkii soo galay ayaa waxa dhacday dicil kamid diciladii masaajidada ayuu bilaabay inuu ku kaadiyo markuu bilaabay inuu ku kaadiyo ayaa qaar kamid ah saxaabadii way kaceen way xanaaqeen waxay rabeen inay ninka markaa qabtaan oo ama banaanka masaajidka u saaraan ama qaarkood xataa ay gacan ula tagaan hase yeeshee nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dejiyay markuu ninkii dhamaystana wuxuu ku yiri ahriqu alayhi ma anbur biyo ku daadiya waxa weeyaan nijaastii ninkii markuu dhamaystay ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u yeeray markaas wuxuu la hadlay sidii nabi uu la hadlay jiray dadkiisa oo kale wuxuu ku yiri meeshan waa masaajid wama ju'ilat almasajid lihakada waxyaabahan aad sameynaysid masaajidka looguma talagelin si fiican buu ugu sheegay ninka uu khaldamay waxa dhici karta inuu aqoon darro u geysay si u baahnaa in wax yar loo sheego nabiga sallallahu alayhi wasallamna uu sheegay ninkii markii loo sheegay wixii masaajidku hawshiisu ay tahay si degan oo fiican loogu sheegay ayuu gacmihiisa taagay markaas wuxuu yiri اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا بور الهو اني محمد كليغي نون نحريسو عيد كلنا هو نحريسا markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu qoslay tabasumay buu wuxuu yiri ضيقت واسعا wax aad u balaaran oo naxariista ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaad ciriirisay oo laba qof ku soo koobay wuxuu rabaa message inuu si asxaabtiis intuu u jeedsada asxaabtiis buu wuxuu ku yiri ضيقتم عليه فضيق عليكم waad ku ciriiriseen oo waad ku qayliseen oo waad ku boodeen waxa weeyaan isagina ducadii buu idinku ciriiriyay oo laba qof ku soo koobay annagu masaajida ilaahay yaanan caruurteena ku ciriirin aan soo dhaweyno أن كعمهن أفرنا كونوا مبشرين ولا تكونوا منفرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.